بسم الله الرحمن الرحيم دهور wanaagsan dhageystayaal meel walba joogtaan halkan waa radio kulmiye qodobada wararkan idin maantana waxa ugu waaweyn shirkadda Kenya Airways oo muddo kadib duulimaadkii ugu horeeyay maanta ka bilaabaysa magaalada Muqdisho barnaamij looga soo horjeedo doorashada koonfur galbeed iyo xariga Muqtaar Roobow oo maanta ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Baay ammaanka magaalada Baydhabo oo aad loo adkeeyay iyo diyaar garowga doorashada berrito oo laga dareemayo magaaladaasi faahfaahin laga helayo qarax miino oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose madaxweynaha Puntland oo maanta ku dhawaaqay inuu yahay musharax xilli wali uu taagan yahay muranka guddiga xalinta khilaafaadka ee maamulkaasi booliska dalka Talyaaniga oo xiray nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Daesh madaxweynaha Mareykanka oo Turkiga ka diiday inuu u soo gacan geliyo wadaadka Fathullah Gulen qaramada midoobay Israa'iil waxay ku eedeysay inay burburinayso xabad joojinta lagula kala dhaxaysay dalka Lubnaan iyo Jose Mourinho oo laga cayriyay shaqadii tababarnimo ee kooxda Manchester United Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweyn iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wadajir waxaa idinkugu waramayaa duhurkan Burhaan Diini Faarax iyo anigu Xawluul Cubayd warka waxaa soo saaray Maxamed Cali Maxamed taariikhduna waa 18 bisha 12 sanada 2018 kusoo dhawaada dhageystayaal warkii oo fidsan waxaa noo soo socda war ku saabsan diyaaradaha shirkadda Kenya Airways oo Muqdisho duulimaadkii ugu horeeyay ka bilaabaysa hase haatee aan ku bilowno wararka gobolada Baay iyo Bakool barnaamij looga soo horjeedo doorashada maamulka koonfur galbeed ee maalinta bariya loo madalsan yahay iyo xariga loo geystay wadaadka la yiraahdo Sheekh Muqtaar Roobow oo dawladda Soomaaliya magaalada Muqdisho ugu xiran ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Bardaale la yiraahdo oo gobolka Baay ka tirsan wariyaheena Yunis Duraan Cali warkan inoo faahfaahiyo degmada Bardaale ee gobolka Baay ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ka dhacay barnaamij weyn oo looga soo horjeeday doorashada xilka madaxweynenimo ee bari lagu wado inay ka dhacdo magaalada Baydhabo iyo xarigii loo geystay wadaadka Muqtaar Roobow oo Mansuur dadka dibadbaxa dhigaya oo iskaga kalimid xaafadaha kala duwan ee degmadaasi ayaa ku dhawaaqayay ereyay iga soo horjeedaan doorashada bari lagu wado inay ka dhacdo Baydhabo iyo xarigii dawladda dhexe u geysatay wadaadka Muqtaar Roobow oo Mansuur kana mid ahaa musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi qaar ka mid ah dadkii dibadbaxa ka dhigay degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa la hadlay idaacadda kulmiye waana kuwan waxaan ka banaanbaxaynaa falka loola kacay Muqtaar Roobow dad aad u tir badan waa anigu maana tirkoobin xaafadaha degmada kulligood way soo wada baxeen marka dad la tirkoobi kara maaha aadaweyn dadka banaanbaxa dhigayo waa deegaanka degmada Bardaale dhalinyaro ulmaawdiin aqoon-yahani hooyooyinka macluuleed waxaan nahay caruurteena ma garatay annaga ujeedkeena wuxuu yahay in la soo daayo madaxweynaheena oo koonfur galbeed Muqtaar Roobow Abu Mansuur samayba diidinaa barnaamijka oo ay dawladda raani soo bidi Sheekh Muqtaar Roobow Abu Mansuur oo nahay si oo ay dambalaan la ka gaadi oo Baydhabo ku gaadi oo ay tolshay ka dhajar ku gaadi qaladka adoonana soo biyaay oo waliba may booy sheed amisom oo nabad ilaalin ay dinaanin kaaladina soo biyaay ku binaan baahayn arintaas diidina jeeyamiin ma ogolaadana kala yalana may ba kulana walayo wal jarme doorasho oo ay reer koonfur galbeed dhamaantii simin ma odayalka diidan ulmaawdiinka diidan walbo gardaaya diidi walayo walaani geliyo ma bulshada dhamaantii reer koonfur galbeed wada dhanyin diidan maalinimada bariya ayaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi oo ay u taagan yihiin musharaxiin tiradooda gaaraysa 5 musharax sidoo kale doorashada bari lagu wada inay ka dhacdo Baydhabo ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo wali dawladda dhexe u xiran yahay Muqtaar Roobow oo Mansuur kana mid ahaa musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi balse maalinimadii Khamiista ayna soo dhaaftay ayaa amar ay bixisay dawladda dhexe lagu soo qabtay Muqtaar Roobow oo Mansuur dhinaca kalena ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay iyadoo diyaar garowga doorashada berrito laga dareemayo magaaladaas wariyaheena Axmed Saadiq Cabduqaadir Yarow ayaa ka wareysanay warkan aad u mahadsantahay Cabduqani waxa inka lagu jira diyaar garowgii ugu dambeeyay oo ku aadan doorashada berri oo 19 ka dhici doonta magaalada Baydhabo ee gobolka Baay lana dooran doono madaxweynaha
dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ahaan magaalada Baydhabo gaar ahaan goobta ay doorashada ka dhacayso waxaana lagu arkayaa ciidamo cusub oo isugu jira kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee Ethiopia iyo kuwa federaal marka waxa sidoo kale magaalada gudaheeda lagu arkayaa ciidamo kala duwan oo kuwa xoogga dalka oo sida booliska nabad sugidda iyo militariga oo iyaguna qaarkood xitaa la geeyay baraha control ee laga soo galo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxa kale Cabdiqani xusid mudan in oolka doorashada ay ka dhacayso in maanta loo sii dhameystirayo dhammaanba wixii agab ahaa oo la keenayo sanduuqyadii lagu codeyn lahaa sidoo kale waxa la keenayaa printeradii lagu daawici lahaa wax walba oo loo baahan yahay agab ah oo doorashada beri ka dhici doonta magaalada Baydhabo sidoo kale waxa jira kulamo ay leeyihiin lamaha ammaanka ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo waxa la filayaa inay ka soo saaraan amaro ku aadan in maalinta beri magaalada aanan ka shaqeyn karin gawaarida nooca loo yaqaan bajaajka iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa biyalka caadiga marka weli kasta aysan soo saarin laakiin waxa inta badan marka magaalada wadi imaanayo ama shirar ay ka dhacayaan waxa ay nacadeeda in magaalada la kala xiro marka dadkuna si weyn ay u hadalhayaan doorashada beri ka dhacaysa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay wariyaheenna gobolka Bay ayuu kaasi ahaa Axmed Saadiq Cabdiqaadir Yarow oo faahfaahin naga siinayay xaaladda magaalada Baydhabo iyo ammaanka sida loo adkeeyay maadaama maalinta beriya ay loo ballansan yahay in magaaladaasi ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed diyaaradaha ay leedahay shirkadda Kenya Airways oo Kenya laga leeyahay ayaa muddo kadib waxa ay duulimaadkii ugu horeeyay maanta ka bilaabaysa magaalada Muqdisho xawlul cubeed warkii la akhrinaysa ayaa noo sii faahfaahinaysa warkan shirkadda Kenya Airways ayaa maanta si rasmi ah waxay u bilaabi doontaa duulimaadkeeda ay ku kala bixinayso magaalada Muqdisho iyo magaalada Nairobi 15kii bishii November ee la soo dhaafay ayuu qorshuhu ahaa in diyaaradda Kenya Airways ay duulimaadkeeda ka bilowdo magaalada Muqdisho yeeshay dib u dhac ayaa ku yimid saraakiil ka tirsan waaxda duulista hawada Soomaaliya ayaa keenay u xaqiijiyay in maanta ay shirkadda Kenya Airways Muqdisho ka bilaabi doonto duulimaad diyaaradeed sidoo kale shalay waxa hadalkan sheegay gudoomiyaha fulinta ee shirkadda Kenya Airways Sebastian Makos diyaaradaha Kenya Airways ayaa la filayaa in labada duhurnimo ay ka soo degto garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho oo daqiiqado ay naga xigaan faahfaahin ayaa laga helayaa qarax miino oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose sida uu ku soo waramay wariyaheena Axmed Abuukar Sabriye wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso deegaanka Golweyn ee gobolkan Shabeellaha Hoose ayaa ku soo waramaya in duleedka deegaankaas uu ka dhacay qarax miino ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah goobta lagu aasay qaraxa ayaa marin u ah ciidamada militariga Soomaaliya ee ku sugan gobolkan Shabeellaha Hoose balse qaraxa ayaa saameeyay dad shacab ah oo halkaasi ka agdhowaa gudoomiyaha gobolkan Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in qaraxaas ay ku dhaawacmeen 4 ruux oo shacab ah 3 kamid ah ay caruur yihiin midna ay dumar tahay kuwaasi oo ka agdhowaa halka qaraxu uu ka dhacay waxaase uu beeniyay in la beegsaday ciidamada dawladda ka tirsan oo inta badan halkaasi isticmaala marka nabadgedka ayaa waxay dambe ugu aaseen ciidamada ay yiraahdaan ayaga inay ugu talagaleen iska dhigeen balse Allah wadada shikiliga la yiraahdo sekundaariyo oo mara jamaale ilaa iyo Galweyn ilaa Buulmareer ilaa Shangaari ka dhaca kaligaasi ayay saareen buundadiisa oo ku taalo deegaanka Galweyn meel kamid ah ayay dhigeen dambe u dhigeen dambadii ayaa dad shacab ah ay ku qaraxday oo islaan oo masaakiin oo meesha mareysay iyo 3 cunug oo yar yar oo xataa ciyaalkan dugsiga gaarina 3 jir iyo 2 jir iyo 1 jir meelahaas ahaa ayaa wax ku gaareen marka dhaawaca gaarayna way dhaawac weyn Ilaahay ka badbaadiyay xagatimo yar yar ay noqdeen marka qaabkaas ay wax u dhaceen meel wadada ay maraan ciidamada ay ahayd balse meel ciidan gooni oo maraamay sameeyeen shacabka masaakiintaana way marayeen dadka ganacsatada way marayeen dadka dhan ayaa way marayeen wada caadi oo guud ay ahayd dhinaca kale al-shabaab war ay soo saartay oo ay ku sheegatay mas'uuliyadda qaraxan ayay sheegtay in ay la beegsatay ciidamo ku sugnaa bar control oo ku taala duleedka Golweyn khasaare dhimasho iyo dhaawac ahna uu ka soo gaaray ciidankii halkaasi ku sugnaa inta badan al-shabaab waxa ay miinooyin ku aasaan wadooyinka gobolkan Shabeellaha Hoose kuwaasi oo marin ahaan u isticmaala ciidamada militariga Soomaaliya oo ku sugan gobolkan Shabeellaha Hoose deegaanada ka tirsan Axmed Abuukar Sabriye idaacadda kulmiye afgooye
puntland haddaan eegnana madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi xilli ay taagan tahay ama uu jiro muran ka dhashay guddiga xalinta khilaafaadka ee maamulkaasi waryaheena cumar maxamed soomane haynoo faahfaahiya warkanna madaxweyne cabdiweli maxamed cali oo muddo xilhayntiisu ay ka dhiman tahay wax ka yar 15 cisho ayaa maanta magaalada garowe ee caasimadda puntland waxa uu ku qabtay xaflad uu ku shaacinayo inuu ka mid yahay xubnaha musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada madaxweynaha puntland 2019 taasi oo la filayo in 8 bisha January ee fooda nagu soo haysa lagu qabto magaalada garowe xafladda shaacinta cabdiweli maxamed cali waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan golihiisa xukuumadda xilka ka dhamaanayo isimada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada puntland cabdiweli gaas ayaa sheegay in muddadii xilka uu hayay uu ku guulaystay waxyaabo badan halka kuwo kalena ay u dhiman yihiin waxaana uu soo qaaday haddii mar kale uu qabto xilka madaxtinimada maamulka puntland uu dhammaystiri doono waxyaabaha qabyada ah ee uga harsan muddada loogu talagalay in muddo xilhayntiisa madaxtinimada maamulka puntland uu ku dhammaysto waa kan cabdiweli maxamed cali madaxweynaha maamulka puntland oo xilka ka dhammaanaya islamarkaana maanta xarunta jaamacadda bariga afrika ku shaaciyey in uu ka mid yahay musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada madaxtinimada ee puntland sidaas darteed ayaan maanta doonayaa inaan xoogga saaro arrimaha dib-u-habaynta dhaqaalaha dalka dhisidda ciidan xoog leh dhamaystirka kaabayaasha iyo jihaynta dhalinyarada puntland haddaba madayahay anigoo og xaaladda puntland iyo duruufaheeda og shacabkeedu maanta inuu u baahan yahay garsoor sinaan iyo cadaalad dowladeed oo ay lagama maarmaan tahay inaan sii xoojino iyaan haddana maanta mar labaad isu soo sharaxay xilka madaxweynaha dowladda puntland ee 2019 qaar ka mid ah xubnaha musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada puntland ayaa dhankooda si aada ula socdeen khudbadda uu jeedinayay cabdiweli maxamed cali waxaana ay ku dhaliileen sida ay hadalka u dhigeen waxqabadka uu ballanqaaday cabdiweli maxamed cali 2014 balse xilligan ballanqaadyada kale uu samaynayo uusan ka dhabayn doonin maadaama uu ku fashilmay waxqabadkiisa muddadii uu xilka hayay tallaabada ku dhawaaqista cabdiweli gaas ee musharaxnimada madaxweyne maamulka puntland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli uu taagan yahay khilaafkii ka taagnaa magacaabistii dhowaan uu digreeto ku soo saaray xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada maamulka puntland musharaxiinta qaarkood ayaa arrinkaasi ku tilmaamay min cabdiweli gaas uu ugu dan leeyahay magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka dana gaara uu ku doonayo in mar kale uu ku soo baxo doorashada madaxtinimada ee maamulka puntland si la mid ah isimada dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada doorashada ka qaybgalaya ayaa dhankooda cabdiweli ku eedeeyey in uu faragelin toosa uu ku hayo soo xilista xildhibaanada ka qaybgalaysa doorashada madaxtinimada ee maamulka puntland booliiska talyaaniga ayaa xiray nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda ISIS Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa warkan soo koobaya booliiska talyaaniga ayaa sheegay inay xabsi dhigeen Soomaali looga shakiyay inuu xiriir la leeyahay kooxda la magac baxday khilaafada islaamka Cumar Xasan Ibrahim oo ah 20 jir ayaa booliisku waxa ay sheegeen inuu qorsheynayay weerar uu ku qaado kaniisado ku yaalo dalka Talyaaniga oo ay ka mid tahay kaniisada ugu weyn ee Roomaanka oo ku taalo magaalada Vatican booliiska ayaa warfidyeennadu u sheegay in Cumar Xasan Ibrahim uu yahay Soomaali si gaar ah uga soo jeedo gobolka Bari kaas oo khamiistii la soo dhaafay loo xiray tuhun ah inuu xiriir la leeyahay kooxda Daacish booliiska dalka Talyaaniga ayaa Cumar baaritaan ku hayay in ka badan hal bil ayagoona sidoo kale soo bandhigay caddeemo ku aadan in Cumar uu ka tirsan yahay Daacish booliiska dabagalka Cumar qaabilsana ayaa sheegay in la maqlay Cumar oo ku leh ruux kale waxaad qarxisaa dhammaan kaniisadaha ku yaalo Talyaaniga sidoo kale booliisku waxa ay soo bandhigeen wada sheekaysi kale oo Cumar ku leeyahay waxa uu ku dhintay wadadii alle ninkii toogashada ka geystay isbuucii la soo dhaafay suuq ku yaalo magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska halkaas oo ay ku dhinteen 5 ruux booliiska dalka Talyaaniga ayaa kordhiyay sugidda amniga kaniisadaha kadib markii ay kordheen weerarada ay kooxaha Al-Qaacida iyo Daacish ay ka geystaan goobaha ay ku cibaadaystaan dadka haysta diinta Masiixiga وماسنتهاي عبد الله waxay noo soo socdo war la xiriiray Jose Mourinho oo laga cayriyay shaqadii tababarnimo ee kooxda Manchester United balse markan duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono kooxda kubadda cagta ee ka dhisan waddanka Ingiriiska ee Manchester United ayaa cayrisay tababarahoodii Jose Mourinho
Mourinho waa la saadaalinayay in kooxdu ay ceerin doonto arrintan waxaan kala sheekaysan doonaa stuudiyaha nagula jira wariyaheena dhinaca ciyaaraha maxamed shooriye nuur barakaad maxamed soo dhawow goorma soo baxay warka ku saabsan in Mourinho laga ceeriyay shaqadii tababarnimada Man United qadar hadda laga joogo 30 daqiiqo ayay warbaahinta dunidu shaacisay Jose Mourinho macallinkii reer Portugal ee hogaaminaya Manchester United in laga ceeriyay waxaana ay timid markii qoraal rasmi ah uu ka soo baxay kooxda kubadda cagta ee Manchester United taas oo looga mahad celinayo waqtigii fiicnaa ee uu kooxda la qaatay dadaalkii uu ku bixiyay looguna rajeynayo mustaqbal wanaagsan oo lagu xaqiijiyay shaqadii kooxda uu hayay in halka ay ku dhantahay 11 dhibcood ayay markaa kooxdu u jirtay afarta ugu sareysa horyaalka wadanka Ingiriiska 19 dhibcoodna Manchester United waxay u jirtay booska koowaad oo ay ku jirto kooxda Liverpool guldaradii axadii dhacday oo Anfield ay ka soo qaateen ayaana loo sababeynayaa inay soo dadajisay macallinkan oo markii horeba culeys xoogan uu haystay toddobaadkii hore warbaahintu Burhano waxay shaaciyeen 90% kalsoonidii ka jirtay qolka dharbadalashada in markaa uu lumiyay haddii shaqaalihii ciyaartooydii iyo dadkii kale ee qolka ka shaqeynayay macallinku isqabtaan caadiyanba waxa la fisho waxay tahay in isaga la eriyo waxay isku dhaceen Paul Pogba oo markaasi ku guuleystay koobka dunida oo qaranka Faransiiska la qaaday dhammaan ciyaaraha kooxdu wuxuu ku hayay kursiga keedka kulamada qaar ayuu bedel ku keenayay waxay isqabteen ciyaartooy kale oo markaa iyagu la saftay ciyaaryahanka la yiraahdo Paul Pogba marka tira ciyaartooy oo isqabteen ayaa natiijada kooxda kala dhantaalaysay waxayna Manchester United iminka muujinaysaa inay xal u aragtay in la eriyo macallinka intii la bedeli lahaa dhowr ciyaartooy oo kooxda ka mid ah yaa haya marka xilkiisii loo soo dhiibay la soo Sky Sports goordhow waxaa boggeeda Twitterka ay ku daabacday warka sheegaya Michael Carrick halyigii hore ee kooxdan oo haddaba caawiya uu ahaa Mourinho in uu sii hogaamin doono shaqada tababarka ee kooxda United inta kooxdu ay ka soo magacaabayso tababaro cusub waxaana la filayaa in iminkaba ay eegi doonto ama ay fiirin doonto cidda ay ku bedeli lahayd Mourinho marka maalin ka hor ayayna ku beegneed markii kooxda Chelsea laga eriyay marka waxaad moodaa toddobaadkii si ceyrinta inay ku soo beegantay mar kale in la eriyo Mourinho ma kooxda kale soo maray horta Ingiriiska marka la fiirshay ma xataa caalamka waxaa lagu xasuustaa 2004 kooxda Porto waxaa kale oo Burhano uu soo maray nadiga Chelsea oo mar intuu ka tagay uu dib ugu soo laabtay Inter Milan oo 2010 Champions League uu la qaaday La Liga Spain oo u suura galiyay Real Madrid Manchester Unitedna waxay ka mid ahayd kooxaha waaweyn oo tababarahan soo maray marka waxa la eegi doonaa isaguna cidda xigta ee uu qaban doono mar haddii shaqadan laga ceeriyay